sawirka looxan ku muuqda ee cajiibka ah waa mid ka mid ah sawirada ugu cajiibsan ee soo maray taariikhda artiska, kaas oo waqti xaadirkan la joogo ka dhex suran bartamaha madxafka weyn ee Paris oo loo yaqaan Louvre. Sawirkan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay magaca Checkmate oo Carabi ahaan noqonaya Cash Milig. Ayaa waxaa sawiray nin la oran jiray Mauritius Retzi oo ahaa nin Jarmal ah, si uu markaas uu ciyaar ahaan ugu muujiyo dagaalka sharta iyo khayrka ee u dhaxeeya bini'aadamka iyo shaydaanka. Sawirka waxaa ka dhex muuqda laba qofood oo wada ciyaaraya ciyaarta jazz-ka ama shatranjiga, oo markaas midna uu dhoolo cadeynayo halka midka kalena uu saaray gacantiisa madaxa. Sawirkan haddaad si fiican u fiiriso, shaydaanku wuxuu u muuqdaa mid dhoolo cadeynayo oo 100% isku kalsoon oo ciyaarta jazz-kana ku guuleystay, halka boqorka ama wiilka dhalinyarada ee ka dhex muuqda sawirka uu u muuqdo mid niyad jabsan oo isku dhex wareeray. Looxyada cadcad ee kaaga dhex muuqda sawirka ciyaarta waxay u taagan yihiin guuldarrada dadka ama bini'aadamka, halka looxyada mudmadow ee ku badan ciyaartana ay u taagan yihiin inuu shaydaanku uu ku guuleysan rabo ciyaarta. Dhinaca midig ee shaydaanka waxaa ka muuqda libaax weyn oo gacanta ku haya jumjumo ama qolfoofta bini'aadamka, taas oo ka dhigan dhinaca madow ee sharta iyo balaayada shaydaanka. Sidoo kale sawirka bartamaha ku jira wuxuu muujinayaa isaguna in ay malaa'igtu daawanayso dagaalka weyn ee u dhaxeeya dadka iyo shaydaanka, ama si kale haddaan u dhigno dagaalka u dhaxeeya sharta iyo khayrka. Geesaha waaweyn uu wata ninka waxay ka dhigan yihiin inuu yahay shaydaankii weynaa, kaasoo weliba uu boqorku u fiirinayo daymo cajiib ah ee yasmo ay ku jirto. Boqorka wuxuu u muuqdaa mid rajo dhigay oo aanan aqoonin meel uu kaga baxsado guuldarrada ciyaarta, isagoona islamarkaasna saaray gacantiisa dhabanka si uu markaas uga fikiro wuxuu samayn lahaa dhaqaaqa xiga ee ciyaarta. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa madxafkan soo booqday koox ciyaartooy ah oo heer caalami ah, waxaana ka mid ahaa ciyaartooydaas laacibkii ugu haystay adduunka markaas ciyaarta jazz-ka ama shatranjiga oo la oran jiray Paul Morphy. Paul markuu ag maray ilaa iyo dhowr jeer agagaarka sawirka looxa agtiisa ayuu ugu dambeyntii wuxuu ag istaagay sawirkii looxa. Daymo iyo fakir dheer kadibna waxaa sawirka ciyaarta dhexdiisa uga soo baxay wax uu la yaabay uu la cajabay. Kadib waxaa Paul u imaaday kooxdii asxaabtiisa ahayd oo markaas rabtay inay baxaan, ayaa waxay ku wargeliyeen inay degdegsan yihiin maadaama ay daaheen. Kadib wuxuu ku yidhi Paul saaxiibadiisii, runtii waxaa nolosheeda oo dhan ku soo qaatay ciyaarista ciyaarta jazz-ka ama shatranjiga, waxaana sawirka ciyaartan iiga dhex muuqda wax aysan dadka kale marnaba aysan indhahooda ku arki karin. Markaan fiirshay dhoolo caddeynta shaydaanka ka muuqata iyo quusta saaran wiilka dhalinyarada ama boqorka, runtii ka laacib ahaan waxaan arkaa in wiilka dhalinyarada ama boqorka uu weli haysto fursad weyn uu ku guuleysan karo. Hal dhaqaaq uu sameeyo oo keliyana wuxuu gebi ahaanba kaga takhalusi karaa ciyaarta shaydaanka dhammaanteeda, balse maskiinka ma oga inay fursaddaas ag taalo xaggiisa, wuxuuna noqday mid quustay oo jahwareersan. Haddaba intaas kadib maalintaas waxay qoladii maamulka madxafka isku dayeen inay baaritaan ku sameeyaan hadalkii ka soo yeeray laacibkii ciyaarta jazz-ka, iyagoona ugu dambeyntii ogaaday inuu sax ahaa 100% hadalkuu sheegay laacibka. waxaana maalintaas kadib magacii ciyaarta ee ahaa Checkmate loo bedelay magaca The King Has One More Move, oo micnaheedu uu yahay boqorka wuxuu leeyahay hal dhaqaaq oo kale. sidoo kale sheekooyinka ku saabsan ciyaarta jazz-ka ama shatranjiga ee ugu yaabka badnaa taariikhdana waxaa ka mid ah qiso dhex martay boqoradii hore ee Hindiya ka mid ahaa iyo wasiirkiisii oo la oran jiray Shah bin Daahir oo ku magac dheeraa Sita. Ayaa waxaa maalin maalmaha ka mid ah boqorka soo gaaray war sheegaya in uu wasiirkiisu uu alifay ciyaar cajiib ah oo qurux badan, oo markaas lagu maamulo ciyaartaas caqli iyo xisaabaad aad iyo aad u sarreysa. Boqorkii wuxuu aad ula cajabay uu ka helay ciyaartii jazz-ka uu soo bandhigay wasiirkiisii, isagoona boqorkii go'aansaday in uu ka abaalmariyo wasiirkiisii maadaama uu u alifay ciyaar qurux badan oo cajiib ah. Kadib boqorkii wuxuu ku yidhi wasiirkiisii, iga dalba maanta wax walba oo ku jira niyadaada waan kuu oofin doonaa. Runtii boqorku wuxuu mooday in codsiga wasiirkiisu uu noqon doono mid fudud oo islamarkaasina uu fulin karo, sida in uu dalban doono dhul iyo dahab iyo wixii la midka ah.
balse wasiirkii ayaa wuxuu boqorkiisii ka dalbaday dalab uu aad ula yaabay boqorkii. wuxuuna ka dalbaday inuu marka koowaad uu siiyo oo keliya 1 xabbo oo qamadi ah, kadib 2 xabbo, kadibna 4 xabbo, iyagoona sidaas dhammaan loogu labijibaari doono godadka 64 god ay ka kooban tahay ciyaarta jeeska ama shatranjiga. runtii boqorku wuxuu moodayey inuu fulin karo codsiga wasiirkiisii kaga yimid ee qamadiga, wuxuuna ka codsaday la taliyaashiisii in codsiga wasiirka loo fuliyo sida ugu dhaqsiyaha badan. maalmo yar kadib waxay u soo noqdeen boqorkii iyagoo u sheegay wax uu la yaabay oo xitaa uu suuraysan waayey. waxay ku dhaheen boqorow, dalabka qamadiga uu dalbaday wasiirkaaga markaan xisaabinay runtii wuxuu noqday mid adag oo aanan la fulin karin, xitaa haddii la isku keeno dhammaan hantida aad haysato iyo xitaa haddii la isku keeno dhammaan qamadiga yaala Hindiya iyo weliba xitaa qamadiga adduunka yaala oo idil. boqorkii oo yaaban ayaa wuxuu ku yidhi la taliyaashiisii, bal ii sheega cadadka yaabka leh uu dalbaday wasiirkayga. kadib waxay u sheegeen cadadkan cajiibka ah ee kaaga muuqda shaashadda oo ka kooban 20 nambar ayaa wuxuu yahay inta weyne uu ka qabo cadadkan mid aadan magac sheegi karin, oo xitaa haddii aad isku daydo inaad hadda tiriso aadan tirin karin xitaa kumanaanka sano ee soo socota. cadadka qamadiga uu dalbaday wasiirka waa 18 kuwantilyan iyo 467 kuwardilyan iyo 744 trilyan iyo 737 bilyan iyo 9 milyan iyo 51,615 xabbo oo qamadi ah. haddii lagu qiyaaso tiradan wax soo saarka qamadiga adduunka ee la soo saari doono boqolaalka sano ee soo socota, xitaa waa mid aanan ka agdhoweyn inay buuxiso tiradan halkan kaaga muuqata. ma og tahay in ay jiraan in ka badan 319 bilyan oo qaab oo loo ciyaari karo dhaqaaqa koowaad ee ciyaarta jeeska ama shatranjiga, iyadoona inta badan isku dhafka ciyaarta uu yahay mid aad u badan oo aan la soo gabagabayn karin. mideeda kale, ma og tahay tartankii ugu dheeraa adduunka ee ciyaarta jeeska inuu dhex maray 2 laacib oo la kala oran jiray Nicolas iyo Orsafage, oo dhacay sanadku markuu ahaa 1989kii. labada laacib ayaa waxay ciyaartoodu qaadatay 20 saacadood iyo 18 daqiiqo oo waqti ah, iyagoona sidoo kale sameeyay 269 wareeg oo ciyaar ah. si kasta ay isugu dayeen labada laacib inuu midkood midka kale uu ka guulaysto way u suurtageli weeday, waxayna ugu dambayntii ciyaartaas ku dhammaatay mid barbardhac ah. waxaa la sheegaa haddii la isku dayo in la ciyaaro ciyaarta jeeska ugu dheereed abid inay u baahnaan doonto 5,949 jeer oo tuurmo caadi ah si ay ugu guuraan labada ciyaariyaan dhaqaaqa tobanaad ee ciyaarta, taasoona micnaheedu uu yahay inay gaari doonaan 170 ay ka dambeeyaan 24 eber, kaas oo aanan aqoonin sidoo kale wax aan ku qiyaaso dunida. waxaadna ogaataa daawada in nambarka octillion uu 5 jeer uu ka badan yahay nambarkii hore ee wasiirku ka dalbaday boqorkiisa. si aad iila fahanto weynida uu ku fadhiyo nambarkan, waxaad ogaataa inuusan jirin qof ama mashiin xisaabin kara nambarkan, xitaa haddii uu isku dayana waxay ku qaadan doontaa inuu tiriyo min bilowga adduunka ilaa iyo qiyaamaha laga gaaro. dadka ku takhasusay xisaabaadka waxay ogyihiin oo yaqaanaan in ciyaarta jeeska ama shatranjiga ay ku jiraan dhaqaaqyo ama guurguur badan oo cajiib ah, oo maalan haddii labada laacib ay soo gaaraan dhaqaaqyada tobanaad ee ugu horeeya ciyaarta, waxay ogyihiin in ciyaartaas gebi ahaanba ay noqon doonto mid weligeed iyo alaheed iska socon doonta aanan dhammaan doonin. mowduucena maantana intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum. haddaad ka heshay muuqaalka keliya leegta saar muuqaalka, sabskareebkana wuxuu ku xiran yahay hal mar aad farta saarto batonka.